السلام عليكم kusoo dhow barteena YouTube xayawaanada qaar waa kuwa qurux badan oo aad jeclaysanaysa inaad u dhawaato laakiin taas bedelkeeda kugu noqon kara qaar sabab u noqda dhimashadaada sidoo kalena ku soo weerar kara si lama filaana muuqaalkeena maanta intaynaan gudagelin nagu soo biir adoo taabanaya subscribe videogana like dhe kuna soo dhow channelka slow loris xayawaanka loo yaqaan slow loris wuxuu muuqdaa mid aad u qurux badan oo bilaa dhibaato ah laakiin waxa uu leeyahay siro dilaa ah. loris waxa uu leeyahay qanjidho qarsoon oo ku yaala gacantiisa kuwaasoo soo daaya sun halis badan. sifooyinka qaar wuxuu la wadaagaa maska loo yaqaano cobra waxay sameeyaan ci iyo qaylo. wuxuu leeyahay calaamada maska oo kale sidoo kalena waxa uu dhaqaaqaa sida maska oo kale. sunta uu soo daaya kaliya waxay ku tahay khatar dadka xasaasiyadda kula sunta. waxaad arkaysaa YouTube-ka markaad booqato dadka oo la ciyaaraya isagoo kor u qaadaya gacmihiisa iyagoo isku dayaya inay dadka ka ilaaliyaan gacmahooda sunta leh. waxay halis ugu jiraan ka ganacsiga sharci darrada ah oo dadku way ka ganacsadaan halka haddii lagugu qabto ay tahay ciqaab in lagu marsiiyo. loris waa mid aayar socda laakiin halkii habeen wuxuu socon karaa masaafo dhan 8 kilomitir. wuxuu leeyahay 2 carab waxay arkaan hal kalar. wuxuu ku jiraa 25 xayawaan ee adduunka uga halista badan daawade. 9 anti-ateris xayawaanka loo yaqaano anti-ateris wuxuu cunaa halkii maalin 35,000 oo quraanjo. waxaa la yaab badan waxa weeye in xayawaankan aan ilkaha lahayn uu noqon karo mid halis badan laakiin taas bedelkeeda wuxuu leeyahay cidiyo dhaadheer oo uu ku ugaadhsado quraanjada kuna difaaca naftiisa marka uu dareemo khatar. haddaba haddii xayawaankani uu nuugo amba uu taabto qof ibniaadana jirkiisa wuxuu u geysan karaa khatar fara badan. haddaba hal mar keli ah sida ay jaridda National Geographic daabacday anti-aterisku ma aha kuwa xanaaq badan ama dagaal badan. taas bedelkeeda waxay noqon karaan kuwa aad u daran. waxay ku istaagaan iyagoo adeegsanaya lugaha iyo dabada dambe. waxay la soo baxaan cidiyaha halis badan oo dhaadheer oo dhererkooda lagu qiyaaso 4 inch. xayawaanada uu la dagaalami karo waxaa ka mid ah shabeelka nooca loo yaqaano Puma iyo nooca kale la yiraahdo Jaguar. 8 mute swan kaliyaha eegin quruxdooda iyo dhererkooda laakiin shimbirtan waxay noqon kartaa mid ka fog xaqiiqda. dadka waxay ku weeraraan baalalkooda marka talada ugu fiican lagu siinayaa waa inaad ka fogaato. shimbirtani waa mid qurux badan oo awood badan. madaxweynaha jariiradda American Ornithological Union ayaa sheegay inuu hubo in ay shimbirtani dhaawac u geysan karto dadka. si kasta ha ahaatee shimbirtan swan waxay awood u leedahay inay keeni karto nabaro, murgacasho iyo jabniin. dhimashana way sababi kartaa laakiin ma badana. hal case oo ka dhacay magaalada Chicago ayay geysatay shimbirtani taasoo sababtay dhimashada qof ibni aadan ah iyadoo la rogtay doonidii uu saarnaa. 7 mouse dadkeentooda badan uma aqaanaan si fiican. waxay u maleeyaan in aanay halis ahayn. wejiga degan ee miskiinnimada ayaa sira oo ku sababa dadka inay u dhowaadaan. waxay yihiin kuwa halis badan oo dagaal badan sidoo kalena waa bilaa dulqaad. hadday gaajoodaan iyo hadday daalaan isku si ayay dadka iyo xoolaha ula dhaqmaan. magaalada Alaska taasoo ka dhigaysa sanad walba inay kor u kacayaan dadka dhimanaya. haddii aad soo weerarto waxaa suuragal ah inay kugu dhuftaan oo ay kugu qaadaan geesaha. wuxuu difaacaa naftiisa iyo ilmihiisaba isagoo adeegsanaya geesihiisa. dadka waxay u wareedaan si ay uga argoostaan. waxaa lagula taliyaa dalxiisayaasha inay ka fogaadaan sawirna ayna la gelin. sidoo kale waa inaad ka carartaa kana gashaa gaadhi amba guri haddii aad aragto. haddii meeshu tahay mid furan oo wadageeda ah oo kayn ah waa inaad u cararto hab ah zigzag si aad uga badbaado. nasiib wacan. 6 leopard waa xayawaanka labaad ee ugu weyn ee laga helo lamadegaanka Antarctica. wuxuu ka mid yahay xayawaanada dilaaga ah ee ugu halista badan. wuxuu cunaa kalluunka iyo xayawaanka loo yaqaano biganka. waa xayawaanada xanaaq iyo dagaalka badan. wuxuu ku ciyaaraa ugaadhooda iyadoo meyd ah. culayska labku waa 300 kilogram halka dhadigu yahay 260 ilaa 500 kilogram. dhererka labka waxaa lagu qiyaasaa 2.8
ilaa 3.3 mitir halka dhadigu yahay 2.9 ilaa 3.8 mitir. waxay leeyihiin ilka dheerdheer oo fiiqfiiqan una adeegsadaan ugaarsiga. hadduu ku qaniino xanuunka aad dareemi doontaa waa mid qayro caadi ah. waxaa laga helaa badanka Australia. haddaad joogto iyo haddaad u dalxiis tagtaba intaba iska ilaali oo muuji taxadir dheeraada. 5. Pufferfish nooca kalluunka waa midka labaad ee ugu sunta badan xayawaanada lafdhabarta leh, iyadoo kaliya ay ka horeeyaan rahda dahabiga oo kaliya. wuxuu bedelaa shiibkiisa isagoo iska dhiga kubadoo kale, taasoo ka hortagaysa kuna adkaynaysa ugaarsatada inay si fudud ku liqaan. wuxuu leeyahay sun halis badan oo la yidhaa TTX tetrotoxic, taasoo 1200 jeer ka sun badan kana halis badan sunta ugu weyn adduunka ee cyanide. halka kalluun waxa uu leeyahay sun uu ku dili karo 30 qof oo qaangaadha. haddaba vogu waa cunno Jabaan laga sameeyey kalluunkan oo halis badan. cid waliba ma samayso. barashada lagu sameynayo waxay qaadataa in lagu barto 2 ilaa 3 sano. waa sidaad maqashay. haddaba daawadahayga qaaliga ahow, haddaad Jabaan tagto ma cuni lahayd cunnadan macaanka badan? kommentiga hoose igula wadaag jawaabtaada. 4. Deer, xayawaanka ugu halista badan gobolada iyo magaalooyinka Ameerika waa deerada. waa deerada. deeradu sidaad moodaysa ma ahan. deeradu waxay dishay 120 ilaa 200 qof sanad kasta gudaha dalka Mareykanka. halka qof wuxuu halis ugu jiraa sanad walba in uu la kulmo buti, yaxaas, libaax badeed iyo waliba masaska Ameerika. badanka waxay geysataa shilal iyadoo habeenkii gawaarida hor cararaysa, qofkuna sidaa shil ku galayo. waxay haraatidaa qof walba iyo shay walba oo ay u aragto khatar. waxay leedahay geesaha halis badan kuwaas oo ay dadka geliso. deeradu waxay gudbisaa xanuuno fara badan kuwaasoo halis ku ah nolosha ibnu aadanka iyo jiritaankooda. 3. Platypus, xayawaankan waxa uu uga eegyahay jidhka dhogorta eyga. afkana waxa uu uga eegyahay shimbirta la yidhaa duck. waa xamaaratada keliya ee dhigta amba dhasha beed. kalab waxa uu leeyahay ciddi dheer oo ku taalo lugtiisa. waxay soo daysaa sun taasoo dili karta ay nool. dherarkeedu waa 50 mililitir. wuxuu ku mudaa dadka taasoo asiibta qanjidhada. waa mid ka mid ah xamaaratada yar ee sababi karta dhimasho. sunta ay leeyihiin sababteed hadduu ku mudo wuxuu leeyahay xanuun iyo barar. haddaba haddii aad ku nooshahay dalalka Australia waa inaad iska ilaalisaa xayawaankan oo aad muujisaa taxadir dheeraada. 2. Blue Ringed Octopus waa mid ka mid ah xayawaanada sunta leh ee laga helo biyaha iyo webiyada. dherarkoodu waa 15 ilaa 20 mitir. hadday dareento khatar way ku qaniini kartaa. sidii kalluunka aynu soo sheegnay ee Pufferfish waxay leedahay sun la mid ah oo la yidhaa TTX amba tetrotoxic. waxay ku nooshahay Jabaan iyo Australia. waxay dadka dhibaato u geysataa marka ay dabaalanayaan. marka ay khatar dareento waxay shidaa laydhka buluuga ah oo ah digniin oo kale. sunta ay leedahay waxay sababi kartaa paralyze kadibna dhimasho. haddaba daawade, sunta ay leedahay waxay dili kartaa 6 iyo 20 qof oo qaangaadh ah daqiiqada gudahood. 1. Maroodiyada. maroodigu waa mid ka mid ah xayawaanada ku nool dhulka ee lagu jacaylka badan yahay. inkastoo ay dadka badbaadiyaan haddana waynu ugaarsanaa haddaynu nahay dadka. sidoo kale waxay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan ee dhulka ku nool. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay weerarka lama filaanka ah ee ay ku dhaqaaqaan xilliyada qaarkood. gudaha India 100 qof ayuu dilay maroodi. inagoo eegayna National Geographic taariikhda ay baahiso, sida ay sheegeen 500 oo qof ayaa sanad walba u dhinta weerar ka imanaya maroodiyada. marka la eego lab ama dhidig waxaa halis badan labka, waliba kiisa yar kaasoo khatar badan. maalin walba 96 maroodi ayaa lagu dilaa Afrika gudaheeda. daawada miyaanay ahayn wax lala yaabo? waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. ha iloobin inaad tiraahdo subscribe oo aad nagu soo biirto. fiidiyowgana haddaad ka heshay like dheh fikirkaaga amba wixii su'aalana kommentiga iigu reeb.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.